Bismillahirrahmanirrahiim. Waa mar kale casharkeenii taxanaha ahaa ee barashada daawada. Maanta waxaan ku qaadi doonaa leaflet. Leaflet maxaa la dhahaa? Leaflet waa warqad yar ee ku jirta daawada dhexdeeda. Leafletka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan. Waxaa ka mid ah composition, kiimikada daawada, indication use, isticmaalka daawada, side effect, saameynta daawada, advice and effect, ka hortagga iyo saameynta daawada, warning, digniin, risky and precaution, khatarta daawada ka imaan karta, dose and admin, qiyaasta iyo maamulidda daawada, contraindication, lama sii karo ama ma qaadan karo, manufacture date, xilliga ay daawada soo baxday, expire date, xilliga ay daawada dhacayso. Qofka farmashiistaha ah ama qofka daawada bixinaya health professionalka ah waa in uu fiiriyaa 10 qaybood ee aan ka soo hadalnay, waana 10 qayb ee ugu muhiimsan ee in laga fiiriyo ay tahay daawada. Intaan haddii ay ka saxan tahay daawada qofka oo qaadan karaa. Intaani in ka badan ayaa jirto oo daawada laga fiiriyo, laakiin inta waa inta ugu caansan ee inta ugu muhiimsan in qofka uu fiiriya ay tahay warqadda daawada ku dhex jirto, waayo waxaa ka dhalan karo khataro badan haddii aan daawada laga fiirin. Taxadirka daawada inta badan waa in la fiiriyaa. Qofka farmashiistaha ahna waxaa la rabaa in uu daawada warqad kasta ee ku dhex jirta leafletkeeda si fiican u akhriyo, si fiican ula socdo, si dadka ay u noqdaan dad fuljigan, daawadan ay u noqoto daawo waxtar leh oo qofkii daawadii ugu wanaagsaneed ee ugu fiicneed uu qaadan karo la siiyo. Waayo daawo kasta qofka hadaa la siiyo khatar ayaa kaga imaan karta, waxaana loo baahan yahay daawada qofka ku habboon uu qaadan karo in la siiyo. Tusaale ahaan, maamooyinka uurka leh oo kaleeta daawooyinkooda waa in looga taxadiraa, si fiican looga taxadiraa ayaa loo baahan yahay. Marka haddii aan ka bilaawno composition, waa kiimikada ay daawada ka kooban tahay. Tusaale ahaan, amoxicillin waxaa ku jiro wax loo yaqaano magnesium iyo lactulose monohydrate ayaa ku jiro. Magnesium oo loo jeebi lactulose. Marka compoundka daawada ay ka kooban tahay marka la qaato kaleeta waxay noqonaysaa daawo active ah oo waxtarkeeda aad ayuu u fiican yahay. Indication use, isticmaalka iyo waxtarka daawada. Daawo kasta waxa ay leedahay isticmaal iyo waxtar u gooni ah. Tusaale ahaan, meelaha badan oo daawada laga isticmaalo sida afka, dabada, xididka iyo dhagaha iyo meelo kala duwan oo kale. Qofka waa inuu fiiriyaa meesha daawada laga qaadanayo. Haddii daawo qalad uu ka imaado kaleeta, qofka waxaa ka imaan karo dhibaato badan, laakiin daawada qofka waa inuu fiiriyaa inay tahay IM ama inay tahay IV haddii cirbad ay tahay. Waxaa kaloo jira advice and effect, waa ka hortagga iyo saameynta. Tusaale ahaan, daawada waa laba nooc, sida daawo loo qaato cuntada kadib iyo daawo loo qaato cuntada ka hor. Haddii uu qofka qaato daawo loogu talagalay cuntada kadib, daawadaas waxay yeelan kartaa saameyn ballaaran. Tusaale ahaan, omeprazole iyo metronidazole waxaa inta badan fiican in la qaato cuntada ka hor. Side effect, saameynta daawada ay ku yeelan karto qofka. Tusaale ahaan, waxaa dhici karto daawada qofka loogu talagalay inuu xilligii loogu talagalay uusan qaadanin. Waxaa kaloo jiro warning, digniin, in qofka loo digo qofka waxyaabaha ka imaan kara daawada sida uurka, waxyeelada iyo haddii uu si qaldan daawada u isticmaalo. Tusaale ahaan, qofka daawada aan qof uur leh oo kaleeta, maamo uur leh, daawada aan qaadan karin haddii ay qaadato kaleeta waxyeelo ballaaran ayaa ka dhalan karto. Qof cunuga inuu kasoo dilmo ayaa macquul noqon karto. Risky and precaution, khatarta daawada waxay ka imaataa marka si qaldan ama meel qaldan daawada laga isticmaalo. Tusaale ahaan, daawo loogu talagalay in laga isticmaalo sinta, haddii uu qofka ka isticmaalo xididka waxaa ka imaan kara khatar aad u weyn. Qofka waxaa dhici karta in daawadaas waxyeelo badan ay ku yeelato. Dose and admin, qiyaasta iyo maamulidda daawada. Daawo kasta waxa ay leedahay qiyaas loogu qaato oo aad mid ugu dhakhtarka soo qoray ama mid leafletka ku qoran. Inta waa loo baahan yahay in laga fiiriyo. Dose-ka marka la bixinayo kaleeta, qofka waxaa loo fiiriyaa da'diisa iyo culeyskiisa. Contraindication, lama siin karo ama lama qaadan karo. Tusaale ahaan, lama qaadan karo daawooyinka uurka baabi'iyaal, kuwa xasaasiyadda kiciya iyo kuwa drugs-ka ah lama qaadan karo.
daawadan daawo kale loolama qaadan karo ama qofkan daawo kale ma qaadan karo. Tusaale ahaan qofka kidney failure oo qaba kaleeta oo qabo ma qaadan karo daawadan, waa in laga fiiriyaa iyadana. Waa mid aad u muhiim contraindication-ka. Tusaale ahaan daawooyinka hooyooyinka uurka leh qaadan karin oo ayagana tusaale ahaan contraindication-ka ayay soo galayaan. Safe waxaa ah oo keli paracetamol-ka, inta kale dhibaato ayay ku keeni kartaa maamada uurka leh. Intaas waa inta ugu muhiimsan in laga fiiriyo daawada ay tahay. Qofka farmashiistaha waa inuu si fiican kaga taxadaraa. Manufacture date-ka kaleeta xilliga daawo lasoo saaray, tusaale ahaan daawo lasoo saaray 2019 expire date-keeda xilliga ay daawada dhacayso. Tusaale ahaan daawadii lasoo saaray 2019 waxa ay dhacaysaa 2020. Daawadan waxay fursad haysataa 3 sano. 3 sano haddii la moodo daawadaas waa expire, lama isticmaali karo. Haddii la isticmaalno waxaa ka dhalan karo khatar aad u ballaaran oo ah wixii loo qaadanayo khatar ka weyn ayaa ka imaan karto. Dadka professional-ka ah ama dadka farmashiista ah waa inay si fiican kaga taxadaraan daawadan manufacture-keeda. Daawooyinka dalalka qaar inta badan waxay leeyihiin dowlado aad inta badan control ku sameeya manufacture date-ka expire date-ka. Waayo waxaa dhici karo daawada in manufacture date-keeda lagu sameeyo copy oo expire date-keeda 2020 ahaa in laga dulmariyo ama in la hormariyo oo waqtiga ay dhaceysay ma ahane sanado kale loogu daro. Taasina waa dhibaato ka imaan karta daawada qofka isticmaalayo. Waa in si fiican looga fojignaadaa daawo kasta oo la isticmaalayo expire-ka la iska fiiriyo. Waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed oo idin leh ka faa'iideysi wacan. Subscribe saar kanaalkeena si aad u heshid video cusub aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. Wixii ra'yi iyo qoraal ah noogu reeb qaybta commentiga. Mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.